بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibad waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si loola tacaalo abaaraha baahsan ee ku habsaday dalkeenna isla markaana soo noqnoqday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sida aad la socotaan wuxuu mar hore magacaabay ergey gaar ah la tacaalida arrimahaas si uu dhiiri geliyo isla markaana uu kor u qaado wacyiga caalamka iyo kan Soomaaliyeed isla markaana uu u dareensiiyo baahida inta ay leeg tahay iyo say laga maarmaanka u tahay in loo gurmado dadka Soomaaliyeed waxaa markii ugu horeysay la magacaabay wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada si mustaqbalka looga hortago inay dhacdo musiibo sida abaaraha iyo waxa la midka ah caawa oo ay taariikhdu tahay 16 bishii 8 2022 waxaan guddoomiyey shir aan caadi ahayn oo aan isugu yeeray golaha wasiirada si looga howlgalo la tacaalida abaaraha waxaana la go'aamiyey arrimaha soo socda kow waxaa la ansixiyey dib u howlgelinta hay-adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliyeed laba waxaa la ansixiyey maamulkii hay-addaas hay-adda maaraynta iyo musiibooyinka waa hay-ad sharci ah oo u xil saaran fulinta gurmadka abaaraha saddex waxaan magacaabay guddi qaran oo ka kooban wasiiro xukuumadda ka tirsan culimada Soomaaliyeed rugta ganacsiga iyo bulshada rayidka guddigaas waxay u xil saaran yihiin jihaynta iyo taabagelinta iyo taageeridda howlaha gurmadka abaaraha mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal waxaan rabaa inaan halkan baaq uga soo jeediyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan rag iyo dumar dal iyo dibad in ay sidii caadiga inoo ahayd markay arrimahan oo kale ay jiraan in ay walaalahood u soo gurmadaan waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego meel kasta ay joogaan dal iyo dibad in caruurteennii iyo waalidiinteennii iyo inta runtii tabarta daran ay maanta la tacaalayaan ama ay la daalaadhacayaan abaaro taasoo saamaysay naftooda iyo maalkooda intaba waxay in badan oo lagu qiyaaso 1 milyan oo Soomaali ah ay ku barakaceen qaybaha kala duwan ee dalkeenna iyagoo aan haysanin biyo iyo baad midna maanta oo kale waa maalintii laga dhabayn lahaa heestii ahayd Soomaali ay toosoo isku tiirsanaada hadba kiina taag daran taageero walidii maanta dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay isku tiirsanaadaan bacd Allah waxay u baahan yihiin inay istaageeraan waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan wax aan sugna ma leh halis baa lagu jiraa dadkeenu halis bay ku jiraan waxaan u baahannahay in aan istaageero waxaan u baahannahay inaan isku tiirsanaano waana dhaqankeenna kaas soo jireenka ah maanta inaan ka dhabayna ayaan rabnaa waxaan sidoo kale baaq u dirayaa dhammaan beesha caalamka deeq-bixiyayaasha hay-adaha khayriga ah guud ahaan beesha caalamka meel kasta oo ay joogaan in ay caawiyaan
dadka Soomaaliyeed in ay ka hortagaan in ay dhacdo macluul xilligaas oo ay adkaanayso in dadka Soomaaliyeed la caawiyo maanta ayay joogtaa maalintii la caawin lahaa waxaan rajaynayaa in ay la shaqeeyaan beesha caalamku inay la shaqeeyaan hay'adahaas aan magacawnay oo ay kow ka tahay hay'adda maareynta musiibooyinka iyo hay'adaha kale ee ayada oversight ku siile aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warbixinta guud ahaan dalka Soomaaliya wuxuu la daalaa dhacayaa abaartii ugu darnayd ee soo martay 40 sanadood ee la soo dhaafay abaartii daba dheer la dhihi jiray midaan baa ku xigta abaartaas marka waad ogtihiin gurmadka la fidiyay midowgii Sofiyeeti oo markaas xooganaa oo dawladda Soomaaliya xiriir fiican la lahaa diyaaradihiisii in dad badan lagu soo daadgureeyay gobolada oo lagu geeyay koonfurta iyo meelihii wabiga u dhawaa dad badan ay ku badbaadeen arrintaas gurmadkaas waagaas la fidiyay marka abaartani waxay ka baaxad weyn tahay tii 2011 iyo tii 2016 kadib markii ay baaqdeen 4 xilli roobaad oo xiriir ah ayaa sabab u ah sababta koowaad musiibada abaartan oo aan horay loo arag ayaa saameysay in ka badan 7 milyan oo Soomaali ah iyadoo ku dhawaad 45% bulshada Soomaaliyeed ay soo food saartay cunto yari aad u daran lana qiyaasayo in 17 gobol ay macluul soo waajihi doonto bisha September 2022 haddii aysan dalka ka diin roobabka dayrtu ee soo socda oo rajeynaya bisha October iyo November gobolka Banaadir baa ilaa xad oo asaguna ma aragtay aan xoolo iyo wax badan ku tiirsanayn ayaa ka badbaaday laakiin isaga naftirkiisa waxa laga yaabaa in dadkaas ay ku soo jabaan markay abaartu ay haday sii xoogaysato abaarta dalka ka taagan waxay saameyn taban ku yeelatay nolosha dadka duuniyada iyo wax soo saarka oo dadkii beeraha iyo kulli ka shaqeyn jiray oo dhan markay abaartu dhacday deegaamadoodii waa ka barakaceen waxayna ku soo aaday xilli dalka ay ka jirto sicir barar baan adduunkiina dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya uu saameeyay sicir barar badanna dalkeena hadeertaan dadkii ay la daala dhacayaan taasoo waajib ka dhigaysa in gurmad qaran oo bini'aadamnimo oo degdeg ah lala gaaro dadka tabaalaysan haddaba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta markuu arkay xaaladda degdegta ah ee bini'aadamnimo ee dalka ku jiro markuu qiimeeyay baahida loo qabo in si degdeg ah looga jawaabo xaaladaas markuu tixgeliyay waajibaadka shaqo iyo mas'uuliyadda qaran ee loo igmaday markuu la tashaday madaxda iyo mas'uuliyiinta wasaaradda markuu arkay dastuurka qodobkiisa 99F iyo sharciga hay'adda Sodma qodobka 1 faqradiisa 6 wuxuu golaha wasiirada sharafta leh u soo gudbinayaa lana wadaagayaa baahida loo qabo dib u howlgelinta hay'adda maareynta musiibooyinka Somali Disaster Management Agency Sodma si dadweynaha Soomaaliyeed looga badbaadiyo musiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa ay geystaan aadmuhu loogana jawaabo xaaladda abaaraha ee daran ee hadda taagan halkani waa Shafi Media Production oo ku faraxsanahay inaad la soo booqato oo aad saaxiib la noqoto barnaamijyada aan idin soo baahino kambalka furo oo subscribe-ka inoo saar annagana waxa sharaf noo ah mar walba la socodkaaga geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan